xildhibaan Xamed Cusmaan Cigaal oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay shirkadda Talison inay kordhiso qiimaha ku hadalka prepaid-ka iyo internet-ka. xildhibaanku oo sheegay in markii ugu horeysay lagu hadli jiray 27 minute dhanka ku hadalka iminkana lagu hadlo 10 minute wax ka yar, taasi oo shirkadaha la midka ay halkoodii ka dhaqaaqeen tan iyo markii la aasaasay shirkadaha dhigeeda ah. waxaana uu sheegay in loo yeedho mas'uuliyiinta shirkadaha Talisom ayna sheegaan sababta ka dambaysa inay kordhiyaan qiimaha ku hadalka. waxaan kaloo doonayaa in loo yeedho Talisom maxaa loogu yeedhayaa halka kan hay'adda ku leeyihiin mooyaane laba kalena waxay ku leeyihiin xagga kan mid bala waa boosaaso ma kala aqaanin mid baan aqaanaa magacooda golis baa la yidhaahdaa. halkan markii ay bilaabeen 27 minute baa doolarka lagu hadli jiray, iminka waxaa lagu hadlaa 10 minute. kuwa kale waxba kama bedelin waay ay sidaa u sameeyaan ee carruurta yaryar ee ardayda ay doonayaan reerahooda la hadlaan doolarkooda ay uga shawanayaan lacagta in iyagana loo yeedho weeyaan oo lala xisaab. Xamse Dabaare, RTN TV, Hargeysa.